السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waxaan sameynaynaa markaa react advanced projects. project waxaan noqon doonaa project ugu horeeyay aan ku qaadanayno react advanced project markaa waxaad ku arki doontaan qayb front end iyo sidoo kale qayb back end insha Allah waxaan soo deynaynaa qayb front end react sidoo kale qaybta back end waxaad ka heli doontaan course-keeni main stage ee yaalo website-keena hirshab.com. so website-ku wuxuu noqon doonaa mid markaasi plugin website soo jeedaan inta waxaa kasoo muuqan doona blogscan oo blog lagu dhuftana waxaa weeyaan oo soo muuqan doona. sidoo kale waxaa la sameyn karaa blog cusub. blog markaasi add blog la sameynayno wuxuu leeyahay editorkan u jeedaan oo qofku wuxuu isticmaali karaa heading kala duwan, wuxuu sameyn karaa fontiyo kala duwan, list oo sameyn karaa, bold oo sameyn karaa, italic oo sameyn karaa, hoos ayuu ka xariiqi karaa. sidoo kale alignment ayuu hagaajin karaa. sidoo kale linkiyada uu rabo inuu link ka dhigo, waxyaalaha uu rabo inuu link ka dhigo link ayuu ka dhigi karaa. tusaale kale haddii aan ChatGPT aan ka raadino information yar aan dhahno about main site aan dhahno about main site, haddaan rabo inaan main site aan ka qoro blog aan dhaho main site kadib markaas imaado content haddaan rabo inaan saan oo kale u qoro waxaan sameyn karaa inaan intaan soo gudbisto. kadib waxaan sameyn karaa intaan qayb ka mid ah tusaale kale main site haddaan rabo inaan bold ka dhigo bold ka dhigi karaa. ujeedaan bold ka dhigi kartaa. kadib qaybaha kale waxaa weeyaan sidoo kale list ayaa sameyn kartaa, list oo 1 2 3 ama bold ayaa sameyn kartaa. soo ujeed list ayaa sameyn kartaa. so already meesha bold ayaa rabtidna bold ayaa ka dhigi kartaa, haddii aad rabina bold waa ka qaadi kartaa. soo ujeed list aan hadda aan sameyno caadi uu soconaa number 2 nageena. soo ujeedaan number 2 sidoo kale wuxuu nageey karaa ilaa number 3 whatever ayuu nageey karaa. soo ujeedaa waa ka listi qaabkaas uu soconaya. marka blog marka qofka sidoo uu rabo ayuu markaas u qoranaya. waxaanu ka soo saari karaa qofka blog aad u qurux badan. soo haddaa fiirsaan listi 3 okay listi markii la rabo la soo celiyaa saasaa loo sameeyaa. soo listi qaabkaas uu sameynaa. kadib ciwaan kale ciwaan hoosaad kale hadduu rabo react.js hadduu ciwaan hoosaad camal uu ka dhigayo wuxuu leeyahay react.js ciwaan oo ka dhigaya markuu dooranaa. markuu doorto wuxuu leeyahay marka tusaale kale h2 camal oo ka dhigaa. soo ujeedaan sidaas ayuu dooranayaa. kadib hadduu rabo inuu bold ka sii dhigo wuxuu dooranayaa bold p-daas oo dooranaya sida caadiga waxaa weeyaan information kale oo markaas soo jishanaya. waxaan filayaa inaad si fiican fahanteen editorkan qaabka u shaqeynaya. waana editorada kale qaabka u shaqeeyaan u shaqeyn doonaa. editorada kale qaabka u shaqeeyaan ayuu u shaqeyn doonaa. marka insha Allah arki doonaa qaabka u sameynan waa front end iyo back end project weeyaan. blog marka qofka add markuu dhaho waxaa la soo saari doonaa message blog created successfully. waxaanu ka soo muuqan doonaa qayb blogista waa kana main site. blog haddaa fiirisaan wuxuu u qoran yahay qaabkii markaas u qornay ayuu u qoran yahay. saa ujeedaan very nice. marka qofka hadduusan waxba meesha ku qorin waxaa la dhihi doonaa fildiyada dhan buuxi oo intii inta wax ku qoraya la dhihi doonaa. that means errorkaas ayaa usoo bixi doono qofka wax looma save gareynayo. marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah projectkan. waxaan arki doonaa insha Allah front endiisa sidoo kale waxaan arki doonaa qaybtii back endiisa kadibna qaybtii main stage full stages ayaa arki doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. course-ka marka waa kana course-kan main stage ayaa markaasi dooranaysaa. waa course-ka aad ku arki doontaan insha Allah projectyada advanced-ka qaybtoodii back end iyo sidoo kale qaybtoodii full stage insha Allah. hadduu alla idmaayo inta ayaa soo gelinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.